kulankani uu soo qaban qaabiyay Cabdulqaadir Maxamed Cismaan Caanoy Cabdulqaadir barnaamij oo ah gudoomiyaha xisbiga kulan oo ku sugan magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan ayaa ahaa mid uu ku soo bandhigay musharaxnimadiisa xildhibaannimo uu sheegay inuu u taagan yahay kamid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka soo socday 2016 waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi nabadoono siyaasiyiin waxgarad iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa munaasabada daahfuray faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan musharax xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Caanoy Cabdulqaadir barnaamij waxaan rabaa inaan wax yar ka iraado dhowr qodob oo kooban aan ka dhaho hawshan waxaan marka hore isbarasho ahaan magacayga waa Cabdulqaadir Maxamed Cismaan Caanoy xogaana naysaha waxa iiga baxday intaan beledweyne joogay Muqdisho iyo Suudaan oo ah Cabdulqaadir barnaamij waxbarashadeedii qayb waa halgan oo dugsi quraankii macallin Cabdi iyo iskuulkii dhagax ahaa ee ugu horeeyay iska wax u qabso lagu qabtay lagu dhisay ayaan wax ku bartay kadibna magaalada Muqdisho ilaa dugsigii sare carabta ka bacdina dalka Suudaan laba jaamacadood aan ku soo dhigtay midna waa dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo maamulka oo dhaqaaluhu takhasus yahay midna waa warfaafinta xamar markaan ku soo noqday waxaan ahay macallin jaamacadda Siimad maxaa igu kalifay inaan xildhibaannimada raadiyo oo tolkay beledweyne joogo baadiyihii naga jiro xamar jiro dibadda jira aan ka codsaday in kursigaas la siiyo waxa waaye dhowr arina igu kalifayso ama aan isleeyahay waa amay tahay mid waxa waaye midda markaan arkay siday dawladdu u socoto iyo inay mar walba aan u baahanahay qof aad u fara dhuudhuuban oo dhex galo waxaan isiri ama aad munaasib ku tahay muddadan ku dhex jiray dawladdan nimanka hadda haysto waxa waaye mar labaad inay ku soo laabtaan ay rabaan qofkii kursiga haysto in laga faramaruujimugi waa jecel yahay waana xaq oo ilaahay dadku wuxuu ku abuuray waay waxaan rabaa qaraaboy dhowr arrinaan idinka rabaa koo waxaan rabaa ducada afar faataxo in la akhriyo in ilaahay arrintaas ii fududeeyo sanadkan ninka qaraabada beledweyne joogto kuwa joogo nuur fanax halgan buulo burda iyo tuulooyin ku hareeraysan jalalaqsi iyo hilooyinkii ku hareereysnaa jowhar waana la ka jiraa firsana jiro nabadoonka insha Allah isku soo aruuri doona dadkaas oo dhan iyo dibadda inta naga jiro waxaan ka codsanayaa ducadaas waxaan ka rabaa oo ka codsanayaa taageero sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonadii siyaasiyiinta iyo waxgaradkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay xafladaasi waxayna sheegeen inay taageersan yihiin musharaxnimadiisa Cabdulqaadir Maxamed Cismaan Caanoy waa mahadsantihiin mar labaad mahadsantihiin mar saddexaad waa mahadsantihiin haddii la waayo xil oo qofku xil waayo dhalyada yuuna waayo xil waa ognahay shan raadi mayna afar xildhibaan meel shan meel nimaan leynaa soo ma ninkaas la shaqeeyo ka tartama oo waana la shaqeeyo anuguna waa la shaqeynayna Cabdulqaadir waa inta aan ka aqaano horta asaa inta badan ba sheegayba يعني وحي وعقبتكي حمر انت جوجنا انغا او لا قبتي اما يودو انا لا قبتي اما عيد والبا لا قبتي horta asaaka warbixin marka waxaan leenahay waa soo dhaweynayna welcome Cabdulqaadir Maxamed Caanoy barnaamij oo musharax u ah xildhibaanimada 2016 magaalada nabadoonada aqoon-yahanada أنت يوم الحين كسر قبل شو هذا ينوم هالعلنا محمد عبدالقادر عثمان عانوي وأنا كل رأسنا إلهي نجوها كقولي أنا قهدان هاي دمركي بدوين عبدالقادر هدي أوصل وهيسن هدو هيستين الأقون عبدالقادر ولا يقان dad badan oo xildhibaana oo raba oo asagu ugu horeeyo oo isu soo bandhigi doona ayaa jiro kaliya waxa noo muhiima nin baa xildhibaan noqon doona laba noqon mayso saddexna noqon mayso in ninkaas si wanaagsan oo caraf leh oo loo wada jeedo oo raali leeyahay yahay oo faataxada loogu maro oo mataqaana lagu wada qanacsan yahay in process-kaas aan ka wada shaqeyno musharax Cabdulqaadir Maxamed Cismaan Caanoy ayaa haatan ah gudoomiyaha xisbiga kulan waxaana horay oo u soo noqday agaasimihii warfaafinta madaxtooyada iyo agaasimihii guud ee wakaalada wararka qaranka Soomaaliyeed ee Soona Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacse TV-ga caalamiga Somali News
beledweyn.